بسم الله بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها من أحوال أهل النار. كتاب كان رياض الصالحين oo qoray uu alifay isku dubarigay soo ururay soo jamciyay imaamkii weynaa imaamu nawowi dimishq abu zakariya yaxya ibnu sharaf raximahullahu raxmatan waasica wa fii miisaani xasanaat allah yeela asagii culimadii ka horreeyey iyo kuwii la waqtiga ahaa iyo kuwa maanta joogo oo diinta noocyaheeda kala duwan nashinayo oo faafinayo oo gudbinayo ilaahay annagana kuwa safkooda iyo leenkooda iyo wixigooda hanugu dara kuwa diinta ilaahay barto oo fahmo oo ku camal falo oo ay anfacno ku manaaficada yowma laa yanfacu maalu walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbi saliim ilahay uu yiri ilaahay hanugu daro. waa cashirkanagii 17 weeye oo riyaad saalixiin wuxuuna ka bilaabanayaa xadiidka 259 ayuu ka bilaabanayaa darsigeena cashirkeena ayuu ka bilaabanayaa oo baabu fadl ducaafati almuslimiina walfuqaraai walkhaamiliina baabka asaga xadiid ka tirsan weeya waa xadiidka 259. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد لم يتكلمون هل في المهد دربت المهد وحنبارة وهوينك ويوينك المهد قاعدة مركز وحنبارة يكون أحردان مدكت أما حكت سميسنا هذا أما مرة حكت سميسنا هذا دربتاس وحضارة كسميسنا هذا baadiya oo kale waxay neefta inta qurxiyaan oo waliba maqaarka geriga oo kale ayay ku xardhahayeen kaasay ku qaadanayeen ilmaha amari wax baa la dhihi can nabi sal ly slam qaala nabigu wuxuu uri lam yatakalamuuna hallin fi lmahdi dhereebta kumuuna hallin ilaa 3 saddex cunug mooyaan isagoo xilligii hadalka uuna cunugu gaarin uu ku hadli lahaa oo ilmaha loogu talagalay inay ku hadlaan ku afbartaan ku hadlaan isagoo gaarin cunug hadlay 3 cunug baa jiro ilaa 3 saddex cunug mooyaan wax kaloo hadlay ma jiro. 3 cunugna waxay ahaayeen reer bani israa'iil ayay ka soo jeedeen ciise bnu maryam ciisihii ina maryam ahaa nabi ciise sal allahu alayh wasalam wa saaxibu jureej ninkii caabidka ahaa ee suufiga ahaa mutacabidka ahaa ee jureej ahaa saaxiibkiis cunugii lagu dacayadeeyey in lagu wasaqeeyo oo lagu ceebeeyo oo meel looga dhaca la rabay oo loo tiiriyay inuu asagu dhalay oo garaacnimo ku dhalay nin caabid oo cibaado badan oo cabida u ahaa adduunya waxaa ka zaahid waa labo. wa kaana jureej wuxuu ahaa rajulan nin u ahaa caabidan oo cibaado badan oo mutacabid oo aada u cibaado badan fatakada wuxuu suubsaday oo samaystay soomicata meel mawlac oo gamaas oo ku cibaadaysto oo soomico oo dabaq oo sarreyso oo u diyaarsaday inuu ku cibaadeysto halkaa uu isaga jira habeen iyo maalin uuna ka soo bixin mar uu xaqsan iyo mar uu salaadu taagay iyo mar uu wardinayo tasbiix iyo tahliil iyo takbiir inuu ku mashquulsan soomicata meel gamaas oo mawdac oo masaajid muu samaysto
oo dabaq sare fa kaana uu ku sugnaaday fiihaa soomicadaas inuu isaga jiri jiray mowdica fa atatu waxaa u timid ummu hooyadii iyaa soo ziyaarato u timid islaantii dhashay hooyadii baa u timid meesha ugu timid wahuwa isagu yusalli waxayna la kulantay way u timid markay u imaanaysay salaad buu ku jiray salaad oo sunna ah buu tukanayay faqaalad waxay tiri yaa Jureej war hooy Jureej ow war hooy war Jureej ow magaciisa Jureej la oranay faqaala wuxuu niyadda ka yiri qalbiga ka yiri yaa rabbi rabbigayo ummi wa salaati أمي وصلاتي اجتمع علي إجابة أمي وإتمام الصلاة موافق لأفضلهما إلى يوم وحي هالمرئي كلمي لو شيء واجب هو يلي أجيب التام كذا إلى رؤى هي صلاة إلى تامير إلى يوم وافج كودي فل بلد هذا هو يلي أجيب التام كذا فل بنينا هو يلي وافج إلى أجيب وصلاة كبع هاي عن إيران انت صلاة جوجيو هذه فل بلد هو يلي إلى أيني وركينا وصلاة الإسكسي وطني لا يوافج صلاة labada arrimood buu ku taraduday inuu salaadiisa iska sii wado hooyadii uuna dheg jalaqu siini uuna la hadli iyo inuu salaadii joojiyo hooyada u dhawaaqo labadaas ayaa isugu timid oo midba mid kale ka daran ka culays badan فكان فيها صومعتنا وفاتت waxaa u timid ummuhu وهو يصلي asagoo tukanay فقالت waxay يا جريج وجريج فقال wuxuu yiri wuxuu raacay waxay intee qorb intee gacanta saarta iyadoo qoraxdii wax isaga dhigay ma soo xora ee kor u fiirisay فقال wuxuu yiri جريج يا ربي ربيgayo ummi hooyaday miyaa ajabtu ajiiba وإجابة أمي مياه واجب عليه هويدا إلى أجيب مياه واجب قركي والصلاة وإتمام الصلاة مثل صلاة إلى سكوة طوطاميش فأقبل وحقوقان كقال على صلاتي على إتمام الصلاة الصلاة سيلو سي وطاميش وهو يدعو النوق إلى صلاة الجيران فانصرفت مركو وحبو جواب واي نوق لواي واسك الله واسكجيست ماشي كتبت له الله فلما كان من القد بري وكذا مركي قال هاتنا مع لما حكتي أتت وهاتنا ويؤتبت صلاتي هو يدي وهو سوى السديسي يصلي أوتو سوى السديسي صلاة أوجر مركز طاي أتمات لما صلاة أوجر فقال الوحيد لي يا جريج فقال الوحيد أي ربي غيره أمي وصلاتي أجبت اجتمعني علي دعوة أمي وإتمام الصلاة أجبت أمي ما هو يدي ما أجيبه أو أتممت صلاة لما صلاة ليتان تاميرة أي ربي يا ربي يا أمي وأمي والصلاة الصلاة لي هو يدي كيما أجيبه فأقبلت روحه قاسة أو قابلة على صلاة يسئلون النوق أرن إلا ما هو صلاة الأمس أيضا لما سوينس أنت صلاة لك لما سلم مسوي سويس كان في حيسة فلما كان مرء من القد ما نسيت حالتنا أتت لنا ويؤتمن وهو أسوي يصلي ما شلت حباب علامة حكمة ما كجر أساسي صلاة الوجه وأمر صدحات فقال وحد يا جريج فقال وحد أي رب أمي والصلاة ويدي ما نجيبان ووركينا يلا هاي ميان إلى وصلاة إنتان جوجي مثل صلاة نارس كوتنا إنتان كعب يدي فأقبل على صلاة نسيو جيسو سكوت فقال الوحيد لمرتوى مالتي وقدم نسي اللهم الله لا تمد إله ونفتح كقان أكسيب ونفتح كقان جريج ويلكي حتى ينظر إلا ما أكفر صلاة وكأرق إلى وجوه المؤمسات لا يححل إيشار مدوي اللوينك إلا ما وجهون
ishiisu ee ku dhacdo ee qabato uu wejigooda fiiriyo xataa yandura ilamaa uu ka fiiriyo ilaa wujuuhi lmumisaat naagaha xun ee dhilooyin oo jirkooda ka ganacsada xubinkooda taranka ilamaa uu arko wejigooda fatadaakara banuu israa'iil reer banuu israa'iil baa ku sheekaysta jureejin jureej bay ka sheekeeyeen iyo wa cibaadati cibaada badnidiisa ninka jureej ee reer bani israa'iil ka faalloode faalle ka bixiyeen ka sheekeeyeen iyo cibaada badnidiisa wa kaanad waxaa jirtay imra'atun haweeney baqiyun oo dhilla yutamathalu looga qiyaas qaad bixusniha quruxdeeda annisaa siwaaha haweenka ayada ka soo har hadduu qof yiraa gabar qurux badan baan maanta soo arkay ee hadla ii doono ama gabar qurux badan hiblaayo oo kale ma tahay la yiraa oo laakiin zaaniyad oo dhilla abaajir naag alla naagta qurux badan waxaa looga qiyaas qaadanayaa ayadaa tusaale looga dhiganayaa oo lagu matalihaya ayadoo hiblaayo kale ma tahay la yiraa waana dhilo wakaanad waxay ahayd haweeneyda imraatu wakaanad waxaa jiray magaaladaa jiray imraatun haweeney baqiyun oo dhilla shaarmud yutamathalu looga tusaale qaad looga qiyaas qaad bixusnihaa quruxdeed ayaa jirta faqaalad waxay sheekadii markay maqan jureej waa nin cibaado badan waa nin ilaahay u go faqaalad waxay tiri in shi'tum haddaad rabtaan la aftinannahu anaa soo aafeen anaa soo fidneen inay lilaahi iyo ilaahay darta iyo ikhlaas eena ka ahayn oo tuug uu yahay beenaala idibdarro uu meesha ugu jira caasina uu yahay hooyadina uuna warkeeda dhegaysanayn anaa idin tusahay wixiisu waxba inay ka jirin faqaala waxay dhahay in shi'tum haddaad rabtaan la aftinana anaa soo fidneenay wuxuu anaa idin soo tusahay xaqiiq fatacarada lahu way isu soo bandhigtay way isu soo qaawisay way isu soo carfisay way isu soo dhistay way u timid inaad iga tuntaan rabaabata aad ii tagtay fatacarada lahu waa usoo baxday falam yaltafit saa uma soo jalleeco uma soo milixsan uma soo qooraansan saa umuusa soo fiirinin walaa dhig walaa indho midna jala uma siin falam yaltafit ma soo jalleeci ma soo daymooni ma soo milixsan ilayhaa xaggeeda uu ku daadiyey way ku ceebooda min allaahi iyo mayna ku guulaysanin waxay sheegaysa ee banjarta fa atad way timi raaciyan waxay tiri waa ceeboobaysaa ballan baan soo qaaday waxla aan hallaabanin fa atad waxay isu dhiibto u tagtay raaciyan mid qowsaar oo ari jir oo miskiin meelaha ari dad ugu raacaye kaana ahaa ya-wi kii u soo hoya ilaa soomicati ariga wuxuu usoo dheelmayay wuxuu usoo gelbinayay uu ku soo xariinaya mawdicadan gamaaskan mawdican jureed uu leeyahay meel ku dhegan oo derbigiisa ayuu kusoo xariinaya amaa ya-wi wuxuu daajinaya ilaa soomicati meel masaajidkiisa u dhow ayuu midkan qowsaarka ayuu ariga ku celcelinaya oo ariga daajinay asagay u tagtay marka kii miskiinkaha qowsaarka fa amkanadu way isu wadhay way isu ballaqday way isu dhiibtay min nafsihaa nafteeda waxay tiri haye gabadhii magaalada amaa zamankan gabdhaha ugu quruxsan oo la gaari karayn quruxdeed iyo saan warkii waad ii jeednaa haye maadna miga faa'iidaysanaysaa aan kuu faa'iideeyay miga fara qabsanaysaa waxaa weliga arag baan ku tusayaa ku siinayaa fa amkanadu way isu dhiibtay min nafsihaa nafteedii iyo isu dhigtay isu ballaqday isu firaashtay nin miskiina oo shaqaala oo la quursado oo dad ari u raaca oo naagtaas saas u tiri ka warana diin iyo aqoon iyo wixii saasaan aan lahayn alla ka cabsa fa waqaca bihaa uu jimcay uu u tagay uu ku dhacay koruu ka maray uu kala kor dhacay wixii hayoo dhan buu meesha
ayuu ku reebtay hubkiisii uu la soo baxay fawaqaca calayhaa wuu u galmooday wuu u tagay faxamalad ilaahay baa wax ka waday meesha isla markii hal uu u tagay uuray horey ka qaaday cunug baa u calool galay ilmaa u calool galay wiil ah faxamalad way uur qaaday way rintay way uur qaaday falamaa walada markay dhashay qaalad waxay tahay baa leedahay inkaa qabta cunugan maxaa kaa dhalay ma nina kugumanaan ogeyn qaalad waxay tahay inteed ka keentaa leedahay huwa min Jurayj waa ninkii asaga ahay waa wadaad oo waa suufi oo waa nin mutacabid lahayd ninkii waa ma ogta yaa sidan ii galay oo iga dhalay yaa ma ninkii no فأتوا لمدح داعي مقالة هيس عيدا بوصات رمى جوك صوقب نار صاد ماشي وكجرى الجميع قلت كنترى أصغر صاد ماشي وصوق رعبان ماشي وكان فأتوا ويمان جريج فاستنزلوه صوتك ميرا دوعك صوتك فاستنزلوه وصوت جيل ماشي وصار رامي كسود الجيل وهدموا وجه الجميع صومعته مساجد كيس ماشي وكجروا وعبادة سنة سويت موضع هذا وجه الجميع وجعلوا حب الله يضربون إليه كرباشا وكراعية معي فقالوا ما شأنهم قال محتنا وجيدني لي دانتا دي قالين هذا يكون كنيسة هذا يكون دينيسة وماشي يجي الجميع محاط شيء وحجرات قالوا حين زنيت بهذه البغي تنقل لنا ويبلاي أما هولي دي ما نسعود نونا قيمة يعني ماشي تن معرض هيات كزيني ستين يعني زنيت لوازي ذاتك الدين يوحي غير وأنشي أو نسبة شيء غير يساعد مال وغد نعد العابس زنيت لوازي كزيني بهذه البغي تنقل لنا فولد وين أشي منك أدينه المال يكون ركبات كرش واد كرش قال وحول إين سبي أو عنق أشياء يسا وأن عليه يتوسع أو عنق فجاءوا به ويوكل عنقي ويوكل فقال وحول ولو مركم ما شاء أمر وحافتني نايح وحماية دقناي الأحمر سيني يا وحالي يا غصوي قال وشي أما رواية قال كود أيوة قصرايا لا أيوة ميلا مرمري حافظ طول الأحمر هنا قصدي بالي وحصو حسوس الحبارك هو يدي أيوة فرح ومار فرحات وكفر حي إنه قص بالي أصلا وحصو حسوس الحبارك هو يدي إنه أصيبي أو هذا وما تقول إنه وجه قول وأركض لا يحمد فجاءوا إيمان فقالوا حينان فقالوا حين إلي بعد عنوي دعوني من إقاف حتى أصلي من أن تكون صلاة من تكون إيائي ما وقت إسية فرصة إسية فرصة إسية يا جالس يا ما حل الصلاة كنت كذا دعوني إداي حتى أصلي من أن تكلم صلاة مستقارة تكلم إلهي موقعين الآن سنة فصلى موتو واي تكلم فصلى موتو فلما استلف مركو صلاة يكسل الرسول كسو جسد أتى سبيل عنقي وإيمان فطعن أمد أوقجي أوقدي في بدن علوش عنقي يرى علوش سوسا فرتس أما قل ستي أما فرتس أيو علوش سا وقجي وغمدي وقال وحي جريج يا غلام وينه من أبوك وليأكل عليه فقرانيس أبا وعنو وبنو ينجرى قال وحي فلان ويا أبي واهب ها الراعي كقوسار إي أرجرك هلك عليك قرى كاسا إن قوسار فأقبلوا ويسوا أباري أسكرت يدتك أردن مش سوي ويكون صاكا على جريد حجيسي وسوى جيستي
yuqabiluunahu ay oo dhunkanaya oo shuminhaya dhabanada iyo lugaha iyo meel kasta ka dhunkanhaya oo shuminhaya wayatamasaxuuna bihi isku masaxayo isku jijibilayo oo ismarmarinaya waqaaluu waxay yidhaahdeen oo yani way raalli gelinayaan namni laka waan kuu dhisaynaa soomicadka masaajidkaagii aan kaa burburin aan kaa jajabina ee dhoobada iyo geedasha iyo wixiga ahaa maalmakuunti min dahabi dahab baan kaaga dhisaynaa masaajid oo dahaba baan kuu dhisaynaa oo kugu xaalmarinayna qaala wuxuu la jurayj wuxuu yidhi may masaajid dahaba maran uciiduhaa iigu celiyo min diinin dhoobadiisii kamaa kaanad siday ahayd siday markii hore ahayd iyo waxay ka samaysneed iigu celiyo dhoobadii iyo sidiisii uu iigu celiyo dahabna idinkama rabin fafacaluu way faleen sidii ugu celiyo waa qisadii labaad wey oo jurayj cunugii asagana waa kaa hadlay kala dhixiye qoladii haysatay xeeqadana u sheegay wa baynamaa waqti ka saddexaad sabiyu sabi yardacu uu nuugahay min thadyi ummi hooyadii naaskeeda uu jaqayo uu nuugahay famara rajulu nin baa soo maray raakibun oo wax fuushan calaa daabatin daabad saaran faarihatin oo aada u qurux badan iyo washaarat hay-ad iyo washaarati xasanati suurad wanaagsan faarihatin aada u quruxsan iyo washaarati xasanad libis si fiican loo soo libisa kooraha iyo waxa saaran iyo xariirta iyo waxa ku sharaxan alla yaabis hay-ad aada u wanaagsan suurad aada u wanaagsan loo soo sameeyey faqaalat ummu hooyadu waxay tiri allaahuma allahayow ilaahayow ijcal yeel ibnii wiilkay mithla haadaa ninkaniga oo kaleed maasha aada u qurux badan isaguna aada u libisay oo aada u quruxsay si fiican u libisay faqaalat ummu hooyadu waxay tiri allaahuma allahayow ijcal yeel ibnii wiilkay mithla haadaa kan oo kaleed ninkan madaxdoo saa u libisay maasha quruxda badan ee sidaas xariirta lagu sharax fuushan fataraka uu joojiyo uu ka tagay athadya naaskii cunugii wa aqbala ilayhi xaggii ninku u jeestay maasha saara fanadara ilayhi ninkii uu fiiriyey intuu naaskii afka ka qaaday ayuu xagga ninka fiiriyey ninkii daabada saaraa faraska ama baqasha faqaala cunugii wuxuu yidhi allaahuma allahayow laa tajcalnii ilaahay ha iga dhigin midlahu kan oo kale ilaahay ha iga dhigin uma aqbala calaa thadyi naaskii wuu kusoo laabtay fajacala wuxuu bilaabay yartadicu inuu nuugahay jaqahay fakaanii waxaad moodaa wili anduru inaan fiirinay ilaa rasuulka ilaa inaan eegahay iminkada eegada iyaadi moodaa wahuwa nabigu yaxkii uu ka xikaayoonay uu ka faalloonhay irtidaacu cunuga suu u nuugahay irtidaacu wahuwa yaxkii isagoo ka xikaayo birtidaaci baa leen nuugmadiis biusbuci fartiisa uu kaga xikaayo asabaabata fartiisa ee farcaaytood ama mursada la yidhaah ama markii atixiyaas la taago atixiyaadka fiifihi afkiisa intuu saa u geliyo oo fartiisa wuxuu ka dhigaya naaskii hooyada cunug naaskii hooyada oo kale iyo fartiisa ku matalayo fajacala wuxuu bilaabay yamusaha rasuulku inuu fartiisa u muusanay yani cunug inuu yani tilmaam ka bixinaya siduu naaska hooyada u jaqayo qaala wuxuu yihi wamaruu haddana waxay soo marsiiyeen rasuulku wuxuu yihi bijaariyatin gabar addoonto wahum ayagu yadribuuna kuwa kaxeenaya oo meesha soo marsiinaya meesha islaam cunug ku nuujinayso waa cunug dhowr bilood jira yadribuunaha ay garaacaya wayaquuluuna afkana ay ka leeyihiin zanaytu waa zinaysa lisariqni waad xadtay wahiya ayaduna taquulu ee lee xasbiya allah ilaaha iigu filan ilaaha i kaafinaya dhibkiinii afnagaadadiinii iyo waxaad ii geysanaysaan iyo dilka iyo afnagaadad ونعم الوكيل من لا تنصى حسبي وحاي غفلا أي كافناي الدفاع حي يبدباني الله إلهي إله كافي الدفاع يعاوي ونعم الوكيل من لا تنصى إلى ساؤول وغبر واقبنا ونعم من إلهي ما تنصى فقال الوحيد أمه يلي اللهم الله ولا تجعل إلهي حكيين إبني إلى كي مثل هاتان أو كريت توقت إنسانيا
كان إله عنقي كان فترك وكتك عنقي وجوجي على رضاع نقمني ونظر إلي حقي كبر أفري فقال اللهم اجعلني مثل إله تراك إله إيجاد فهناك ما شاء تراجع شو عليا عنقية هو يلي الحديث الشيكري فقال هو يلي وحيثنا مر رجل مانيون صام عنقه حسن هيئة للآن هيئة سيئة لبس كيسي قاب كيس آد أقول حسن يا صامر فقلت وحاضر اللهم الله اجعل يا ابني ولك مثله سواك فقلت وحاضر اللهم الله لا تجعلني مثله إلى سواك لا يقدي ومر وحين سومري بهذه الأمة أضال وهم يضربون على قراع حيان يتمير قراع ويقولون إليه زنيت وزنيت سرقت والحد يكون وزانية والله ويتوب فقلت وحاضر اللهم الله إلهي من كان من قني تاسوك إلى نقل توب إلى نقل والزاني اللهم الله فقلت وحاضر اللهم الله ولا تجعلها كيد ابني ولك مثل أيضا فقلت وحاضر رواد خلافته اللهم اجعلني من مثل أيضا أكل إله إلى زانية يتوق أيضا أكل بحيث وجد قال وحر عنقي إن ذلك الرجل منك أشيغس كان جبارا وانن كبر بدن وانو أول يوحي شيغا دتك شيغا مساكين أو وحكم مقولي وكبر بدن وسنوينا نحرس لاوة جابر جبار مرة أن إلى جبارنا فقلت وحنا اللهم لا تجعلني مثل جبار كاسوك كلي تنيها سوك إلهها إيقاد وإن هذه الأمة وإن هذه تنة قمت لنا وزانيت واتوب إليه يقولون وحين لها عين زنيت وزنيسا ولم تنزل من الزنيسا وسرقت والحدين لي واتوك باتين لي ولم تسرق وحي حدين مجرى وإن نفسنا يعني وعفيفا وين فقلت وحاري اللهم اجعلني إله إلي المثل متفق عليه وعلوك هذا سيرس وحلق هذا الإقاني حل والمومسات وحامي بضم الميم ميم كل قد الأولى ميم ككوبات وإسكان الواو واو قول الريم وكسر ميم ميم الثانية اللبات الهوس وبالسين الآخر المهملة التي وهن والي الزواني وقوة اللوينك والمومسات والي الزانية وقوله دابة فارهة بفاء الآخر أي حاذقة خطق هرسنة نفيسة آد أقيم بنا آد أقرح بنا حاذق آد أمو قال وناس أسوجيد شو وناكسا حاذقا وشارت من بشين الآخر المعجمة وتخفيف الراء وهي الجمال والظاهر وقرح الظاهر في هيئة حقه يوم الملبس حق اللبس لو لبس إياه قابل إنسان أما وشارت والفارق وشارت السجد عندنا دابة أو قرح للآن اللبس ما صار أما دابة لو لبس والمعنى تراجع ويسكع عن الحديث الشيكري أي حدثت سبيقي ولا شيكري وحدث عصير ولا شيكري ولا ورمي والله أعلم باب ملاطفة اليتيم كان وحو بابي عوام خير الله ترى الله امري الله نحرس يا والبنات يا وسائر الضعفاء كان مساكين اسكاليدا يا والمساكين مساكين يا والمنكسرين ذلك اسكال ضعفاء اسلامات الليتو مكسرين يا والإحسان إليهم الإحسان الله سميه يا وشفقة الله امري عليهم تشاد يا وتواضع معهم إن على اسكسر ريسيني لو هكتو أمارت لسلسي مؤلس كوينيسيني يا والخفض إلا جلعي الجناح قربه اللهم أيه إلع الله إيه قربه يعني محارس لطف قال الله تعالى إلهي وحوية وقبل وجلع والدبع طبيعتني إيه محارس قلبي إيه تنقعتني جناحك قرب كان نبي محمد للمؤمنين مؤمنين ونمر ونحارس ونقدر واصبر صبر في قوله تعالى واصبر صبر واصبر صبر سي أو حباس نفسك نبتال مع الذين كوي لجركود
يدعون عابدين ربهم ربكooda بالقداة subaxda hore gelinkooda iyo walcashiyi gelinka dambe yuriiduuna doonay ujeedadooda wajhu ilaahay rudihiisa iyo wejigiisa inay arkaan oo la kulmaan walaa tacdu yeena u gudbin iyo u taagmin oo u gudbin caynaaka labadaada indhood canum ayaga yeena ka gudbin oo dhaafin oo kuwa kale turiidu adiga oo doonaya oo raba ziinata alxayaati dunya nolosha adduunyada dhaldhalaalkeeda biriqbiriqdeeda iyay ku dagi iyay ku duubsan qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi fa ama alyatiimaka agoonka falaa taqhar ha canaanani ha guulguulin ha u hanjamin ha dhibaateena xoolihiisii iyo ha uga qaalib noqonin dacibnimadiisii iyo wixii la-aana waa masaa-ila kaleeyku su-aalana wax kaalmi iyo gargaar u qaada falaa tanhar ha canaananin ha u hanjamin erey xun iyo hadal xun iyo il xun iyo ha ku fiirin qaala tacaala ilah wuxuu ara-ayta ka waran alladii kii yukadibu beeninahay bidiini diinta beeninay qofka diinta beeninay ka waran jazihiisa iyo wixigiisa ka waran baa laleeyahay alladii kii yukadibu beeninay bidiini diin iyo jazaa iyo is-abaalmarin iyo xisaab fadalika alladii kii wey yadacu lyatiima yatiim ee riixay oo ka tegay kaalmadoodii iyo waxuqabadkooda oo iska riixay walaa yaxudu aanan ku boorinaynin naftiisa iyo dad kale calaa tacaamil miskiin miskiinka in la quudiyo agoonkana maaratay dariishada kala baxay waxooda ka xoogahay dariishada kala baxay xoog iyo wuxuu u sheeganaya وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قال وحنا كنا وحانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر أنه يحقف أيها النبي لا تشومنا مال لا تشومنا فقال المشركون وحي يراني للنبي النبي وحي يراني أسوجي صلى الله عليه وسلم قوي مع القبين يا مدحنا أهاي وضياشي أهاي اللي قدم بي وحي النبي أسوجي دي أترك برد عيني هؤلاء إخوان dhinacyahay agagaarkaaga ka buri oo ka kaxe markaan kula joogno meelaha joogno iyana kasoo dhowaanin yaanada ku arkin yaanada ku sawirin udrud buri oo ceyni haa-ulaa'i kuwan ee asxaabtaada laa yajtari-uuna yeena dhiiranin yee nagu afmaran yee nagu geesiyoomin calaynaa dushannada yee nagu dhiiranin oo inaan la darajo nahay la maqaam nahay yeena u maleynin yee u qaadanin ka buri meesha wa kuntu waxaan ahaa buu yiri sacd ibn abi waqaas ana aniga oo sacd ibn abi waqaas iyo ibn mascuud cabdullahi ibn mascuud iyo warajulu nin oo min husayl iyo wa bilaalun bilaal iyo warajulaa laba nin lastu aan ahayn usamiihimaa inaan sheego magacooda aan meesha aan ku caddeeyo aan doonayo oo aan qarinhayo aanan doonayn inaan soo bandhigo oo aan caddeeyo hebel ilaa labadaa nin ayaanu ahayn fawaqaca fii nafsi rasuul ilaa qalbigiisa iyo niyadiisa waxaa kusoo dhacay sala allahu calayhi wasalam maa shaa allah ilaahay wuxuu u doonay an yaqac inuu dhac oo wuxuu u khuduucay oo u dibcay oo u garaawsaday nimankii qurayshta ahaa ee gaalada ahaa warkoodii ee mushrikiinta ah nimankii mushrikiin ee gaalada oo wuxuu yihi oo faxadatha nafsahu naftiisa saasuu ugu sheekeeyey saasuu naftiisa ayuu gashaday oo wuxuu yiri haddii asidaa yeeshay amee soo muslimaan kuwan madaxda ah ee maalqabeenka ee laga dambeeyay haddee soo muslimaan dadweynihii kale oo ayaga ka amar qaadanay oo ka dambeeyey ayuun amee diinta soo gadaa raje iyo damac iyo hawa noocaasaa gasha qalbigiis saasa يا قلبي سوسونا فأنزل الله سواء أرنت على على لو قد فأنزل الله إلهي وحوسه عز وجل تبارك وتعالى ولا ترد الذين كوا يحبرين فوقين حقين قلبي يا أدنك يا أفك يا وجهك منه هكو حمين هكو فوقين
kuwaasoo yadcuuna caabudaya rabbo rabbigooda caabudaya bilqadaati gelinkooda iyo walcashii gelinka dambe yuriiduuna wajho wax kalena een ilaahay waxaa ilaahay darti iyo ridaha ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo maqfirada ilaahay iyo ilaahay rumayntiisa daraaddeed u sameynaya haburinay kuwan intaad u tiraan وعن أبي بهيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل البيعة الرضوان وكمنها قلال بيعة الرضوان وكجرا وكمنها رضي الله عنه أن أبو سفيان أتى على سلمان الفارس يو سهيب الرومي يو بلال الحبش في نفر أي أو كوح لجوك أيو إيمان أبو سفيان أيو صامر فقالوا وحي عليه رقاصوا أيا وحي عليه نحضر وحي سير عليه ما أخذت الليلة مئين أسيب مئين وافق مئين حليل سيوف الله سيفي إلهي من عدو الله عدو إلهي وانتو نولي سوى مسلمين أبو سفيان رضي الله عنه وقال كأهد يا قريش قالوا لنا كأمر قادريس فكرتني أمر كيسي يكون سعودي فقالوا وحي علينا من كاس ما أخذ مئين قادني مئين أسيب موافق سيوف الله سيفيه إلهي من عدو الله عدو إلهي ماشي الله وطلق يعني مهم كأول مئين حليلي ما أخذها ماشي الله وطلق يعني بوسكي الله وطلق فقال أبو بكر ولا في يوم مقلها يا محويرة رضي الله عنه أتقولون موحى ليس هذا ورك ما أستوجه ليس ما ورك لا أقول للشيخ قريش أضي كيدي عاقل كيدي قرات كيدي مياه ورك أدخل رادي يو سيدي مدح دودي أضيكي دقي قريش سيد كودي عاقل كودي مياه ورك أستوجه أدورك أقول سويا وخلدن إنعم فأتى النبي من أبو بكر صلى الله عليه وسلم فأخبروا أرنتي يؤشي نمكو إيرانين يوحوا أسيقوا موت هبل يا بلال يا سلمان يا سهيب يا هبل يا أبو سفيان أصاع أقمر ولكن يا أبو سفيان وركاسي يكون عن الساسين فقال النبي يا أبا بكر لعلك وحالك يا وحال كرت صورة قال أقضبتهم لمن أيها أصحابك إلى كعريسيسي أو حلالك يقول صدر والإبصدر لأن كنت هتناتني أقضبتهم كيك عريسي لقد أقضبت واتك عريسيسي ربك معبودك خالقك إياك عريسيسي وكو عرونه فأتاهم أبو بكر وأيم القلدي بلال سلمان يا سهيبي وصلى فقال وحوي يا إخوتاه ولا لهيو أقضبتكم ولا لهيو إخواني ولا لهيو أقضبتكم ميدنك عريسي ميدنك حلاجي يعني إذنك عريسي وركا لا قالوا وحينا لا ما يغفر الله لك إلى يكون يا أخي ولا يروا النجي ولا الكنجي وينا ولا الكنجي أنجعلينه نجمع العريسي إلى يكون ذنب نافع أنا هو هيسا نمان رواه مسلم صحيح قوله ما أخذها إن لم تستوف مئن أفصل حقين منه يا أولئك مجرم وقوين وأمتنا مدور كوية قال لماذا كوية يسوع لا في الأي وعسل هدي أسيا كونا قسيلا أمت الدين يتوحيك سوق الله ساسي آمن سلام ساسي وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وخي وكسر الخاء خاء نلاصة وخي وتخفيف يا طالع فضيع على الشديد وروي بعدين بضم الهمزة همزة الأولى وخي وفتح الخاء خاء نلاصة وخي وتشديد الياء يا طالع شديد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عليكم يا رسولكم ونبي محمد وكافر اليتيم ninka agoonta u taagan oo agoonta dhaqaaleey oo daryeel iyo anigu yatiim waa cunuga aabba la'aanta oo aabbiin ama aabbihi hooyadaba ay dhinteen ama qaraabaha ama ayayna qaraabaha fil jannati hakada jannada dhexdeeda saasaan ku nahay waan ku siman waan ku darajo siman wa ashaara uu ishaara nabigu bis sabaaban farta
musabbixada la yidhaha ama wax lagu murdiya ama laisku caaya iyo walwusqaad tan faadima la yidhaha ee ku xigto ayuu saa u simay oo isu garab isugu dhejiyey wafaraja baynahuma dhexdoodu wax yar kala saaray saa u kala sarraysay ani iyo ka agoonka u taagan oo heegan u ah oo dhaqaalay oo daryeeda u naxariisa wuxuu raba wuxuu doonay u qabto oo u sameeyey aniga asagu jannada dhexdeeda daris baan ku nahay wax noo dhexeeya male wax yar oo aan macno lahayn oo dhul ama wadi waxsaas iyaa noo dhexaysa rawaahu albukhaari baa wari wakaafilu lyatiimi alqaa'imu biumuuri waa midka u taagan habeen iyo maalin u soo jeeda daryeelaya cunuga agoonka ee aabba la-aanta daryeelkiisa naftiisa iyo xoolihiisa iyo cirdigiisa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم قف يتيم كتاغ اغونك له waxaa u sugnaada ow liqayrihi qayrkiisa kaafil yatiim ninka agoonka u taagan oo xanaaneeda oo daryeelaya lahu waxaa u sugnaada ow liqayrihi qayrkiisa ana aniga wahwa asagu ka haatayni labadan oo kalaana في الجنة لبدا فرود أوكا ساسا أسمى الجنان حقيقة وأشار أولى إشارة الراوي راويه وهو مالك وابن أنس بالصوابة والوسطى فرأحنا يمرسل سيسكو جينو رواه مسلم وقول صلى الله عليه وسلم أن يتيم أو له السونان أو لغيره قال كافر اليتيم أو له أسوء السونان وأما لغيره أسوء مسونان عدكنوا السونان أو كحكته نصب أهان دنيا أهان وحاها له مركز الليل وحويان أدير أويه ولا الكبار أو أقول عدك حكته ماني أو ولي دريال كيسا هو حق حكته يكون هينتيس حنانينتيس واجباتكيس أما وحوي وولانه وأبي وعناني ويريني أسونا وانوي وبوسكي أباسي أمريكا أوتاي أما ولانيهن أما أدير أويهي أما أوم أويهي وكاس أما ني إلما أديرهم أما أديردي وعناني وإلما أدير مني وانا أقوم أما إلما أديردي وعناني أويهي وأقوم واسا أو لغير وحويا أسوء ولانه مدني أبينا مدني المعنى أما ذاتك أو مسلمين أو كاليتو أي يأسونا لأقوامنا وأسنى حكتين سموي كفوق يساس على يومنا قال رسول أوحي كافر يتيم كقفك أتان يتيم كاسو له أسنى أسونا وعدك حكتين بجرت أبيه مدني وأقوام أما ويلكيسان يعني وأقوم أما ولاد كمان يعني ونوع أو أقوم أما المدينة يدك يعني أما ذاتك أسيام حماية ذاتك هو إسلامي ذاتك يعني لغير نساسوية أنا أني وهو أسيوي كهاتين أو كلا يسكن في الجنة وأشار الراوي وهو مالك وابن أنس بالصوابة والوسطى رواه مسلم وقوله أن يتيم له أو لغير معناه وهي قريب أما وقرابنس وأما أجنبي كي فالقريب مثل أن تكفله غير كفالة قال أمه هو يلي أن تكفله وإلى كفالة قال أمه هو يلي ما كفالة قال وأيضا من الشيء أيضا أحمانيس وأقول أبي ما أنت هو يلي ما كفالة قال سوى مسؤول كان وأما جده أو ما كفالة قال وأما أخوه وذلك مركن له للي وذلك ما كفالة قال أو كون وأما غيرهم غير كودات كليت ومن قرابة سكين والله أعلم وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم ليس المسكين مسكين حقيقاني كامل نمس رنت أبطأ معها
alladii kii tarudhu ee kaa kaxeynayso atamratu xabad timir haddaa siisid magan allahi mar uu yiraa xabad timir aad faraqa ugu ridid ama gacanta u saaran iska dhaqaaqay oo intaa ku qanacsan waa nin shaqaysan oo xamaadinaya oo kaa shaqo badan oo kaa waxaysan kaa layma yiraa miskiin kaamilka ee dhammaystiran ee dhabta ama miskiin uu yahay laakiinse waa laga daray waa laga sii miskiinsay waa looga owleysay atamratu timir hal xabmo oo mir oo timir iyo watamratu hal laba mir oo timir andaasiis iska tageen wala luqmatu malgacad bariis ama hal cangash hal af ku ridash oo cunto andaasiis wuxuu hal mar uu afka gasho iska dhaqaaqay ma aha iyo wal luqmadnaani laba af ku ridasho laba daangasho laba cangasho laba luqmadood haddaasiis iska dhaqaaqay asagoo faraxsan oo qosnahay iska baxay inama almiskiinu miskiinka xaqiiqada ee dhabta alladii kii weeye yatacafafu dhoorsoon oo su-aasha iyo baryada dadka wax weydiisashadiisa iyo ka dhoorsoon oo ka cararihaya aan dooneyni dhibaatana ee ku dhan tahay meel uu ciirsaday iyo meel uu wax ka helayana ayna jirin dadka su-aashoodana isagoo faqiira oo dhibaataysan oo rafaadsan is ilaalinaya oo dad aan waxba weydiisanayna oo xishoone kaa weeye miskiin ajir badan laga helayo oo u baahan kaalmo ee dhabta muttafaqun caleyh wa fii riwaayati fi saxiixayn laysa almiskiinu miskiinka xaqiiqiga ma ahani alladii ka yatuufu wareegay cala annaasi dadka guryahooda iyo jidadka iyo dukaamada iyo meel kasta ku wareegay kaamaa miskiinka dhabta taruddu ee celinaysa alluqmatu afgashi iyo waluqmataani laba af ku ridasho ama hal af ku ridasho ama wuxuu hal xilli cuna ama laba xilli wuxuu cuna haddii la siiyo iska dhaqaaqay ama laba qaado oo bariis haddii meel loogu rido ama laba xabo oo timir iska dhaqaaq iska soconay oo intaa ku qanacsan watamratu hal timir iyo watamrata laba xabo oo timir haddii gacanta loo saaro iska dhagay kaas ma walaakin almiskiina miskiinka dhabta alladii kii wey laa yajidu aan awoodin aan heli karin qinan taajirnimo iyo kaaftoon yuqnii wuxuu isku fillaysiiyey oo dadka uu ku maarmo oo isku debero aanan awoodin wey miskiinka dhabta walaa yufdaru aan loo kaseynin aan loo ogeen aan la dareemin bi asa qof tasadaqo caleyh wax lagu sadaqay haddii la ogaa lahaa dhibaatadii iyo dhibka uu qabay iyo waxa uu qarsanay dadka waxbay siin lahaayeen way caawin lahaayeen haddii ogaan lahaayeen oo waxbay ku sadaqaysan lahaayeen laakiin ma oga dhowrsanaantiisa iyo afgaabnidiisa iyo shibtiisa qof wax isku og wax uu haysto iyo dadku u haystaan walaa yaquumu ma istaagay oo fayasalu naas intuu istaagay dad wax ma weydiisanay ma dawarsanay ma tuugsanay kaa wey miskiinka dhabta oo ajirka badan wacanhu can abi hurayra can nabi sal salam nabiga assaaciyo qofka u taagan cala alarminat qofka dumarka iskaabulada ama waa mid laga dhintay ama waa mid la furay ama waaba tu weligeed aan la guursanin oo laakiin wax dhaqaaleeya aan lahayn oo inan oo gabar assaaciyo qofka u qubay cala alarminat qofka singal ee madax bannaan oo cid ay ku tiirsan aan jirin ee haweenka ah qofka dhaqaaleeya oo daryeeda oo baahideeda daboole ilaahay dartii u caawiyo iyo wal miskiina qofka miskiinka ah labadaa qofka caawiyo kal mujaahido qof jihaado lamida fii sabiilillah wadada ilaahay ku jihaado litakuuna kalimatullahi alculya qof u halgamay oo u dhinto u dagaalamay ayuu la ajriya axsibu waxaan u maleynayaa qaala inuu yiri nabigu way kal qaa'imi nin taagan oo salaatuleyl u taagan habeenkii oo dhan habeen kasto ayuu la darajan yahay la thawaabi alladii qaa'imkaasoo laa yafturu aanan ka noogeyni aanan ka daalayni aan ka cajisayni aan wahsanayni habeenkas inuu salaad u taagnaado kaasoo kaluu la maqaamiya la darajan yahay wa ka saa'imi qof sooman uu la mid yahay qofka gabadha madax banaani ama garoobta ama laga dhinta oo cidna mas-uul ee meel aan ku tiirsaneen dhaqaalee aan haysanay isku dabirtay qofka dhaqaalee iyo qofka miskiinka wa ka saa'imi qof sooman uu la maqaamiya la darajada laa yufdiru aan weligii maalinna aan afureyni maalin kasta soomay ayuu la maqaamiya muttafaqu caleyh wacanhu can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly wasalam qaala nabigu wuxuu yiri sharu tacaami cunto la cuno waxaa ugu baasnay ugu xumaan badan ugu shar badan ugu khayr daran طعام الوليمة sabta iyo weeqan iyo waliimada iyo ducada iyo alla bariga raashinka loo sameeyey ayaa cunto la cuno ugu shar badan ugu xumaan badan oo
maxaa yeelay yumnacuhaa waxaa loo diidaa haa waliimadaa sabtaas alla bariga muraadkaas man ya'tiiha dadkii u baahnaa oo cuni lahaa oo meeshii loogu talagalay marsiin lahaa oo cuni lahaa lagama qaybgelyahay, waa laga reebaya, waa loo diidahaya, looma yeeray. hadday imaadaana albaabka laga furi maayo. wayudcaa waxaa la raadinayaa oo baabuur iyo dad iyo ergiya loo diraya, lasoo barbarihaya ilayhaa waliimadaa inay cunaan man ya'baaha dad aan ogoleen inay cunaan ama soo xaadiraan, dad aan rabi oo cuntadoodiiba wax u cunala ayaa lala baryahaya oo lala raadsanhaya oo loo yeerahaya. waman lam yujib saasay ugu shar badnaan waliimadaas cuntadaas. waman lam yujib qofkaanan ajiibin aanan yeelin addacwata yeermada loo yeeray oo aanan ka qayb qaadan faqad casa allaha warasuulahu ilaahay rasuulka oo uu khilaafay, uu caasiyo, uu beeniyey. ila ayagaa amrihayo haddayna meesha wax macsiya iyo wax munkar haddayna olin oo kuu diidahayo waa inaad isgeysaa meeshii lagaaga yeeray oo muraad uu ka jiro, aroos ahaadna, duco kale ahaadna, walqal ahaadna iyo martaqaad kale ahaadna, waa inaad ka qayb gasho. haddii wax macsiyo oo sida khamrada iyo munkar iyo naaga qaaqaawan iyo hees iyo qaad iyo sigaar iyo khamri iyo qashin iyo qurun iyo wasaq iyo ana meesha la keenaynin, ilaahay uuna raali ka ee cara ilaahay ay ku dhacayso, markaa maxaadiraysa. haddaad laakiin zuulinayso oo tagitaankaaga aad wax kaga qabanayso oo munkarka iyo waxa aad ku zuulinaysa tag. rawaahu muslim saxiix. wafii riwaayat wa fi saxiixayn can abi hurayrata radi allahu canhu min qowli asagoo fasiraya abu hureyra uu mawquuf ku yahay, asagoo xadiidka ka wixii qaadanaya sharxaad iyo wixii ka bixinaya. min qowli bisa طacaamu cunta waa mawquuf oo saxiix hasan wey. macnihii xadiidka laftigun uu mawquuf u yahay, laakiin macnaha xadiidkii hore ka qaad. bisa طacaamu cunta la cuna waxaa ugu baasna oo barakalaawo oo aan baraka lahayn طacaamu waliimada طacaamkeedi wey. yudcaa waxaa loogu yeeray ilayha ayada alaqniyaa dadka maal qabeen, wayudraku lfuquraa dadka fuquradana ee masaakiintana waa laga tegaya, looma yeeray. wacan anas bni maalik radi allahu canhu can nabi sal sl qaala nabigu wuxuu yihi man caala qofkii nafaqeeya oo daryeela jaariyatayni xanaaneeya dhaqaaleeya uquma isu taaga jaariyatayni laba gabdhood qofkii dhaqaaleeya oo isu taaga oo daryeela xataa tabluqa ilamaa ay ka qaangaaraan labadaa gabdhood, ama kuwa qaraabadiisa ahaade ama kuwa kale oo iska caada oo dad kale ha ahaado ajnabi ka ahayn, jaa wuu imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ana aniga wahuwa asagu ka haatayni wey rasuul sal alay wasalam wadama asaabicahu aniga asagoo anagoo isku darajasima sidaa labadaa farood ay isku yihiin oo kale, ama intaan labadaa farood farta musabaxada iyo tan dhaxa usada intay isdheer yihiin unbaa isdheerna yaa waxay inta yaan dheerahay waa simana. wadama asaabicu nabigu farihiisu saa isugu dhejiyey sunan. rawaahu muslim saxiix. jaariyatayni ay bintayni waa laga wadaa laba gabdhood alaa la wada xadiiskuna saxiix. wacan caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri dakhalad calaya waxaa ii soo gashay imraatun haweeneyd baa ii soo gashay tiri caaisha guriga iigu timi, wa macahaa waxayna sidatay oo la socday ibnataani laba gabdhood laba hablood oo lahaa ayadoo ee dhashay ayaa la socday, tas'alu iyada oo kaalmi iyo dhaqaani iyo caawimaad i weydiisanayso gaajo heesa daraaddeed. falam tajid ma ayna la kulmin ma ayna helin cindii agtayda kalama ayna kulmin mayna ka helin gabadhaas islaamtaas shay-a wax raashin wax dhaqaala hayra tamrati hal timira waaxidatin oo keliya mooya hal timir ayaa guriga ayaan uga hela markaan baarbaaray aragna. waa rasuulka ehelkiisi waa xaaskiisi nolosha ay ku nool yihiin iyo nolosha annaga aan maanta ku nool waa kaaf iyo kale dheer cirka dhulka inta isu jiraan. fa acdaytuhaa waan siiyey xabadii markii timirta aheyd baan siiyey gacanta u saaray iyaha hooyadii, faqasamada way u kala jeexday way u kala jartay way u kala goosay qaybisay bayna ibnatihaa labadeedii gabdhood bay u kala jeexday intay lafta ka saartay iyay u kala goosay halkii xabdheed timirta aheyd. walam taakul ayadu waxba kama cuni minha ila waa hal xaboo timir labadii hablood ayay u kala jartay. uma qaamad way sara kacday way istaag
فخرج وإيقا بحد وإيقا تكتب فدخل النبي عليه الصلاة عليه وسلم فدخل النبي عليه الصلاة علينا تشلت علي تذكر إلى الجوء والنصر فأخبرت أرنتي ماليان الشيء قصدي هورينا الله وقت نوسيدت وبريوت من سودا ورشاني صوم مسكين إني إيتم قرية وحب وجهي لها الحبات من أموي هل كيف من رئيس السداد قبل هذا هو طيب بس أين الإله أفكار فقال النبي وحنا من أبتلي قفك لغو امتحان قارت اللوج لني لغو ابتلي لغو جرام من هذه تن أرنتن وكانت لغو امتحان الله لك من هذه البنات قبلها وكانت بشيء وحال قبل هذا لما أحالينا كبرنا علينا لسي أو لغو ابتلي قارت اللوج لني أوف أحسن إليهن ولا أسمي وحفي عن أحسمي إحسان أسمي أولنا حريص كل الله وحيو أهانا ينقبلها صدر الحجاب أصل الدفاع من النار توقع أهانا يا قيامة نار الحجاب توقع أهانا يا متفق عليه نار مأركية وعن عائشة رضي الله عنها قال وحدنا عائشة جاءني وحييتي من مسكين قف مسكين قبل مسكين أو أيتي من إسلام أو مسكين تحمل حنبارسا ابنتين ممتاما من لما تقول حتى فصورة قلب لما قبل حنبارسا تحمل حنبارسا ابنتين لما قبل الله عيد إيش الليلة فأدعمتها وان قودي 3 تمرات سدح دودي لما دي قبلوني هو يدو سدح موت من أوان وهنا بعد كان إليه تعالى عكرت فأعطى ويسيس هو يدي كل واحدة متكست ومنهما لما دي حفلوت كمين لما دي قبلوت تمرة تمر ويسيس ورفع إلى فيها هو يدي وحي أفكي أتاكت تمرة لتأكل إلى حلقي حبا صاحا لا يقول ستح من أو تمر ياسيو قفكي وحل ما كسو توسي لو دي هو يدو حبت كيدي وإلى هو يدي أفكا كشت هي أفكي أتاكت الله عنه فاستدعمتها ابنتها فاستدعمتها وحا كقودس قلبي وحا كسيسمت عصاني أو كدلبي ابنتها قبل هاي نسيبي طوال إلى باي باي سنتي قلو كسي مركي وإيك الله عينك الطورين هي حبتني هو هي أفكا كشتنير هي يعني هاي نسي إلى وعيان ويدي ويبعد نوع إذا لم ما يقعنا لحو يقول لك يضبك واحد ينكش دم هو ينكش دم ما يقعنا طالب من وجهه لا عقل من وعيان فشقت وأكل الجوز حبتني أيضا التمر فشقت تمرة تمرتي وأكل جرت وأكل جحد التي تأصل كانت تريد إدوريس أن تأكلها إلى عنده بينهما لما يقبلون من أكل جحد وأكل جرت فأعجبني وحياب لي الله تعالى لا أمن كان شأنها حالتين ينحرستين يسوح أمها مشي فذكرت وانا الشيء وان الشيء الذي قصدي صنعت سميس قبل ناس إسلام تاس لرسول الله ما الشيء صلى الله عليه وسلم فقال النبي محمد إن الله علم قد أوجب واجب الله عين بها أرنتها سببتنا الجنة إلهي الجنة هو واجب لحريسته إيا وحايس قبل هذا أسمينيس إيا لحريسته ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ويان أيضا أباهيدي إيسا نقفك نفتيد وغرمان نفقفك لنفتيد كورمان الإسلام أو اعتقدها بها واعتقها بها أما وحو إلهي كذا حرين هي بها بسبب أن حريسها سببتنا يقول حريس من النار إلهي النار كذا حرين هي رواه مسلم وعن أبي شريح وحاله خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أنه أحرج علينا وعسليسين إياه وقوة كان إياه حق الضعيفين وحعناس إيا وحي كتنقايا إيا ذنبي وحرج وحا ذنبي إيا وحي كتنقايا إثمي أما عناسين إياه حق الضعيفين لودي ضعيف حقه إيا عناس يعني أتكين إياه ذنبي أن كتنقايا ضعيفين محي لولا نيدان أو تاكت درمحي اليتيم يتيمك أغونك يا والمرة تهاويري
laba daciifa weeyaan oo masaakiin xaqooda iyaan culaysiinaya adkeenaya ama uxarijo dembi baan ka dhigayaa iyo ismi iyo culays iyo mashaqo iyo hoog iyo ciqaab xaqa aldaciifeyn labadii daciifka ah xaqooda alyatiimi yatiimka iyo walmar'ati haween xadiiثun xasanu rawaahu nisaa'i biisnaadi jayiid mukuli wamacnaa uxarijo waxa weeyaan ulxiqu waxaan haleeshiinaya alxaraja dembi iyaan ku ridaya dembi baan uga dhigaya iyo culays iyo mashaqo wahuwa alismu wey xarajku waa ismi wey dembi wey biman qof dayaca oo ku xadgudba oo baylay xaqahumaa yatiimka iyo haweeney xaqeeda ka soo bixin waayo dembi baan dusha ka saaraya aan xaq uga dhigaya mid sugan dhab ah waxadiru waan digayaa min daalik arrintaa waan uga digayaa taxdiiran digitaan baliiqan oo qoto dheer oo xeel dheer ayaan uga digaya wa arjuzu waan canaanaya asjuru waa zajrinaya waa canaanaya waan guulguul canu asaga zajran canaan iyo guulguul iyo goodi iyo hanjaba akiidan oo la adkeeyey wacan muscab ibnu sacdin ibn abi waqaas radi allahu canhuma qaala wuxuu ra'aa sacad ayaa arkay ibnu waqaas ana lahu asagu sacad inuu u sugnaaday fadlan dheeraad iyo darajo iyo sharaf iyo sarreyn calaa man duuna dadka asaga ka liidnoo ka hooseeya inuu asagu ka sarreeyo wax dheeryahay ayuu isu arkay faqaala nebi wuxuu sal allahu alay wasalam hal tunsaruuna maa lidiin gargaara oo maa lidiin kaalmeynaya oo wa tursaquuna miyaa lidiin irsaaqaya ilaa biducafaa'ikum dadka ducafada ee idinku dhaxnoolna sababteeda iyaa lidinku gargaaraya oo wax kastoo aad u baahan ilaahay uu idinku gargaaraya oo lidinku irsaaqaya sababtooda madaxooda daraaddeed ha u maleynina inaad wax dheertiin aad ka fiican aad ilaahay uga dhowtiin sababtooda iyaa lidinku irsaaqaya haddaad u naxariisataan aad u kaalmeysaan iyuu ilaahayna idin kaalmeynaya hal tunsaruuna miyaa lidiin gargaaraya oo alle uu idiin gargaaraya oo gargaar allaad ku helaysaa wa tursaquuna lidin irsaaqaya lidin quudinaya oo irsaaqad lidinku fududanaya ilaa biducafaa'ikum ilaa bisababi ducafaa'ikum ducafadiina sababtooda mooyaan rawaahu lbukhaari waa wariyay hakadaa mursalan xadiidku mursal wayuu leeyahy laakiin xadiisku waa saxiix oo mursal waxa weeye waa taabici oo intuu ka booday qof kale ka booday rasuulka xadiidka u tiiriyay rasuulkana lamuu kulmin muuna ka warin ninkama dhegeysan fa ina muscaban ibnu sacdi taabiciyin uu ahaa muscab ibnu sacdi taabici u ahaa nabiga muu la kulmin nabiga muuna arag warawaahu alxaafid abubakar albarqaaniy fii saxiixi wuxuu ku wariyay mutasala taasaana sax xadiisku mursal ma waa mutasil waa saxiix can muscab can abihi uu ka wari radi allahu canhu wacan abi darda waxaa laga wari cuwaymir cumaryano radi allahu canhu qaala wuxuu samictu rasul lah sal alih wasalam rasuulka ilaahay baan ka maqlay sal al yaquula so-oole ubquuni iraadiye dalba oo iraadiye oo iigu soo dhowaada aducafaa ducafada sababteeda aniga inaad ila saaxibtaan ila rafiiqdaan ilaahay idinku shafeece ilaahay aan idiin bari aad jeclaadaan aniga jacaylkeed iyo soo dhoweynteed iyo shafaacadeed iyo wixigay waxaad ku raadisaa oad iigu soo martaan aad ii soo martaa ducafada inaad u gargaartaan oo kaalmeysaan fa inamaa tunsaruuna waa lidin gargaaraya wa tursaquuna waxa uu lidinku gargaaraya oo lidinku irsaaqaya biducafaa'ikum bisababi ducafaa'ikum ducafadiina sababteeda markaa ducafadiina aad u gargaartaan dadkiina liidan ayuu ilaahayna idin irsaaqayo idin gargaaraya muraadkiina idin saalaya rawaahu abu daauud biisnaadi jayiid baabu lwasiyati dardaaramkiibuu u baab yahay binnisaa'i baa leedahay haweenka loo dardaarmo amaa rag dhaxdooda isu dardaarmaan ama haweenkiiba khayr loo dardaarmo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu lehy wacaashiruuhuna la dhaqma la dhiilgaleeya bilmacruufi macruuf kula dhaqma haween si wanaagsan oo macruuf oo ilaahay raalli ku yahay kula dhaqma oo kula noolaada qaala tacaala ilaahay wuxuu lehy
walan tastatiicuu ma awoodeysaan an tacdiluu inaad cadaalo samaysaan xagga qalbiga ee niyadda iyo jaceylka oo xagga niyadda macnuhu an tacdiluu inaad cadaalo samaysaan bayna nisaai haweenka dhexdooda walow xarastum si kastaba aad u dadaashaan falaa tamiiluu ha eexanina oo ha leexanina kulla meylin leexasho dhammaanteed is-celiya oo isreeba oo isbarqabta hawada dhan ha u wada badanina 100%. haweenka aad wada qabtaan hal xaba dhinaceeda ha u wada leexanina oo tii kale ka wada haajirina fatadaruuha aad ka tagtaan oo aad ka yeeshaan kal mucallaqat mid gees xiran aanan la qabin madax banaana aan ahayn aanan la qabin madax banaana ahayn oo kale ha ka dhigina oo dhaxyaan wain tuslixuu inaad islaax samaysaan iyo masxiya wanaag watataquu ilaahay aad ka cabsataan فإن الله إلهي كان وحوانا غفورا كافد بدن رحيما أو حريص بدن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا الدردار بالنساء هوين الدردار ونحدين الدردار وأيغا الدردار خيرا الدردار أما هوين إلى الخير وسميسان أما محاقنا أيغي إلى الخير aad u dardaaramtaan ama dhexdiina ragga markaad sheekaysanaysin aad khayr isu dardaaramtaan maxaa yeelay fa ina almar'ata haweeney khuliqad waxaa laga sameeyey asalkeedii min dilaacin feer baa laga abuuray oo umunaa xaawa hooyadeed oo aadam feedhiisa laga abuuray ta ugu sarreysa ugu qalloocan wa ina acwaja maa shayka ugu qallooc badan fi dilaaci feerahana aclaahu midda xagga keekisha xigtee ugu sarreysa ayaa ugu sii qallooc ayagoo feeroo dhan wada qalloocan yihiin oo qallooc uu ku wada jiro waxaa ugu sii qallooceedu uu zaa'id u yahay uu daraya midda xagga kilkisha xigto u sarreyso oo feeraha bidixda labada dhinacba feeru waa 8 hadda ragga waxaa weeye feedhi waagii nabi aadam laga saaraa ilaa hadda ragga ka maqan oo dhinaca bidixda waa 7 dhinaca midigtana waa 8 imaa dumarka haweenka labada dhinacba waa 8 فإن ذهبت هداد دونت تقيم إلى توسس حاسكايا قبل هوين كسرته فاتنا فإن ذهبت هداد اسكدين تقيم فاتنا إلى توسس كسرته واجبنيسا وإن تركته هداد كتكتنا وسنة أفتنا لم يزل ما كتجيس اسكما بتنيس أعوج تقلوا عن إناثه ولي سلاسة وقلوا عن إناثه فاستوصوا isu dardaarma بالنساء haweenka isu dardaarma khayrkooda khayr u dardaarma dhexdiina inaad ixsaan iyo wuxuu samaysaan dhexdiina isu dardaarma isku waaniya haweenkana khayr u dardaarma ku waaniya mutafaqun calayh وفي رواية في الصحيحين المرأة haween ka dilaaci feer oo kale shabahdaa u egto feeray ka dhigan tahay waa feer oo kaleeto iyo la mid tahay in aqamtaha feedhaadhaa tiraa waan toosinaya kasartahaa waad jebinaysaa ilaa si kale kuma toosin kar inaad jebisa mooyaan wal istamtacna ku manaaficaada ku intifaacaysa oo ku dhaqmaysina bihaa feedha istamtacna waad ku intifaacaysaa waad ku dhaqmaysaa wa fiihaa feedha ciwajul qallooc uu ku jiro oo ay qalloocantay marka haweeney wa fii riwaayati limuslim ina almarata haweeney quliqad waa la abuuray min dilaaci feer baa laga abuuray lan tastaqiima laka kuuma toosnaanayso sidaa rabtid kama helayso cala dariiqati jidkii toosnaa inay kusoo dhacdo lagama yaabo fa in istamtacna haddaad ku dhaqmayso oo aad haysanaysa bihaa haweeneydna istamtacna waad ku intifaacaysaa waad la dhaqmaysaa waad ku dhaqmaysaa bihaa wa fiihaa ciwajul ayada oo qalloocan qallooceedaasaad ku haysanaysaa waad kula dhaqmaysaa wa in dahabta haddaad isku day addoonti tuqiimaha inaad hagaajiso oo toosisid kasartahaa waad jebinaysaa wa kasruhaa jebitaankeedana haweeneyda la jebinaya waxaa laga wadaa waa sarbeeb iyo durxun iyo waxa weeyaan talaaquhaa furniinkeeda inaad furtid iyo inaad sideedaa ku haysatid mooy wax ka dhexeeya oo saddexaad mar qowluhu cawajun huwa bifatxi siini iyo walwaaw وعن عبد الله بن زمعة زوج من زمعة زوج النبي أم المؤمنين قول عبد الله بن زمعة يا زوج بن زمعة ويان
رضي الله عنه أنه سمع النبي وكما صلى الله عليه وسلم يخطب سوى خطبة آخرين نبي خطبين يوم عبد الله بن زمع وذكر وحوش الناقة حلق كشيء هشي نبي صالح هو الذي عقرها بقنا جري أو بقنا جري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعث وحا أبحي أسرك أشقاها ننكي أهل النار سنة أبعو سنة ونصيب درا وهلاك منا يا حشد الكيدي بقنا قون تيدي أكعي إن بعث الله وحا أكعي رجل عزيز أو مارت شرف منا قوم كيس أحد يسوق شرف منا غريم أو مارتين أو مارت حق بدن أو محاق أولاي قلبسن أو وحا منيع أو مارت عالم أو يعني خير لاوة أو شرلو منيع أو حق يقوله في رات قوم كسر حتين حق يوحكنا ثم ذكر وحوشيكي النساء حوينك أيوه شيكي فوعد أوعد فيهن حوينك فقال وحوي يعمد أحدكم متكين مقصد هيا مدون هيا مدمع هيا وفيجلد انتو قصدوا أبرينه متكين فيجلد مكرباشها يا متومها يا مقراعة يا امرأتها ولديس جلد العبد سيدا الضومها الله قراعة وكذا ميو قراعة يا فلعله حال أركه يقاجعها إنو قلمو شيئية وساحة شيئية لباشاني استمتاعية وكدم عهدنا وكدورم ونقول وكقال انتو الدلو الدور عمل وكرباش من آخر يوم مع النعود دلي قلم نمت كيدي في نمت كيدي وضم حتى وكقال قفل ما الدور عمل وكراعي ثم وعدهم نبي وعدي في ضحك مهدنا وكان كوعدي وقدي في ضحك قص الكود من الأرض نوصل إلى النفط قفك كصبح أشهر قرنه يقضي هون عمل ويريز تكلم فصال ليرات أرتدوا كسو قالوا على النواقض لمقضي لنا يكون قصد هيام نبي وكنهي وقال وحونا لما يضحك أحدكم يتكلم حقوق قصد هيام بما يفعل وحو أسيغو سمينا يوصوب بنا متفق عليه وأسيغو كسو تقلعي محو سمين هيا وهو قصد هيا وحو أسيغو سمينا يوصيغو كسو بحي محاو وهو قصد هيا قفك الهتنين كسو بحثو إيه كفكتو قال كون عيال السوق نمي وحو سمين هيان أو محاويان ذلك نحن انت وحي سيغاك كيران يوحي عيال السوق نمي وحو سمين تعيد ولا حراوي إذا بدري يوحوي لا يقف بني آدم أسنو مسؤولين أما كنترول عالي حتى يكبحصنا إلا ضيا ومحايد عدي واحد عدو سمينس إلا ذاتك لكو عايد أما كنت عايدس أما عليا لما واحد عدو سمينس وأتكمل سنتين معلم أقصى واحد عدناني للملح عاية إسلام أتمن أوداني كسوغش مركاسي عيد أولاد جوفت الننكي عاية هويني وحكا صوفك كدين نافك صوبح هوس مركاسي هويني محدين إلى ماشي كل ما تخسران ماشي هو حاس مركز سؤال من ويدس مركز وحوين ولا أما عذر وأنك عسل حي هذا القرئي وقال ما مقلي حي قرئي وقال لقاء جيك ما قامت لقاء كعسل أول مركز فرح الله هدوما إلى عنس يمونكم مقل أيضا قطن عن حية لأن وحي قانو حكمة يسر أو حوية أيضا قطن عن حية إن شاء الله يمسو مراد بحاوي والعالم والد سيدي بإيه قلبي غير كل نقول لها ما يبغى لما نقول أول سمايا واحد يبغى وأسك عادي ويسيقرع من هذا وبسم هذا ما تسوي هذا waxaad ii sheegay ma maqle nigaaya culus nigaa si fiican wax ugama maqle codka kor igu qayn walcaarimu bilcayni la akhri almuhmala iyo waraad huwa shariiru ka sharta badan weeyaan
المفسد فاسد ها ومن شركة بدل وياه إن شاء الله ومن شركة بدل. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسوى خطبة أخرين وذكر أول شيء الناقة هشه كشيء هش النبي صالح هي والذي في والدنا عقرها بغناها كجر وهش الدليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعث وحاوحي أشقاها هش دلك يدي بغنا جريد كيو أهل النار سنة أبعو سنة والنصيب درا وإن كان قبل إن بعث لها وحاوحي رجل عزيز وتلك سلاح لنا ما يعني شرف يا وحيكون يبت لقدم عريم أو شرلو أو شرف بدن خيلاوة أو شرف بدن منيع أو مال حو يأود وحشيغان هي قوت يأود في راتي تلك سلاح لنا أود يا وحيكون سنوين يأود يباور. ثم ذكره كشيك النساء هوانك وصاها القادة وحسين كفى الله ذلك قصاد فوعد وعدي فيهن هوانك نتكو كوعدي أما أيقي ووعدي وعدك السوجيدي. فقال النبي وحوي يعمد ما أقصد يا ما أبنيري هيا أحدكم متكين أو فيجلد مكرباش يا مدن قليل يا بشابو يا شابو ملك عيا يا كرباش امرأة وحاسكي سكوات أوقب جلد الكلب عبد سنا الضنك لو قرأ إلى لون لنقرأ أوكا نيو قرأ يا أوبراري يا ونيك دادين يا الضوامة ويقول والي قرأ حجر وفلعل وحال غيامة يضاجع أسوامان نساء ودلي قلن كيور إنو هدنا الجماعية وحي قال موشي وراسنا والله سيحدث من آخر يوم بعد قلن كيادة ضمق هدنا وحي وراسنا توا وحدنا من قمال عقلي المهي عبود عقلي صار يا بابا انتو عصر كينا يعاي يقول جوكس يو عشرين يو عشرون هو يصصون عقلي صار يا بابا يعني عقلي دريدس أما عقلي بنادي. ثم وعدهم ثيو كذا وعدي في ضحك مهدنا قص الكون يو كوعدي من الأرض وصل يوحنا يكون قصنا عيان يكون قصنا واحد منكم سميسا. وقال وحنا لما يضحكم حقوق قصنا سوف قصنا أحدكم بما يفعل وحق وأسوى السماء وأسوى كسر بحس أفضل ما تصنع بعود قفك كانت جيسة وقصنا متفق عليه. ليش يا قوي أتمت مغنى سؤال إني ويديس مركاسي أيضا ليش كنا جرت لجوكت إيا نافك صامح للوص مركاسي أيضا إني نفكم إني لما تكسي ودري مركاسي وحوي هذا سؤال هذا حلال كان لقاها كعصني لقاها إبر سفي عن لقاها وحوم مقلع عدك كل يقول مركز إيه النفط كصوب لو إيه مع الليلة وذات خمؤون مقل ها مركز وأبن الحكمة يسموها والعالم ولا بالعين الآخر أمه بدل والرائي هو شرير كشرط بدل المفسد فاسد وقوله إن بعث إقامه حيث قاموا بسرعة السدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق يون كتني يون كعران كعران يون إرن مؤمن يون كتني يون وعران يون ذفر مؤمن وقف مؤمنة كور مؤمنة يون كتني يون وعران إن كريها دون إفساد منها حق يا لقد يعني أخلاق خلقا فقد يا طبيعة توكل إفساد رضي منها آخر تكلا يكون رالي جليس أو رالي وكلا قرية أيوك لكل ما أو قال وحي غيره مثل غير كذا رواه مسلم مو يعني يونا يعني ما نيجاتيف أو زيرو إبر يونا كذا حدي قبل وقام حاسكيس وحياة قاركود وكل إفساد وكل وحياة قارو يكون فرح جليس ويكذا فرحس أو رالي كذا نقط أو كذا يعني أيوك إلى أيام يعني نيجاتيف وكذا ما وحي إبر كأيونا فيه وقولوا يفرق هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه
يبطئ ينوعرون يفرق يقبض ينوعرون يقال وحالينا فركت المرأة وعرون زوجها ننكيني وفرك عسون وعرون زوجها وفركت المرأة أولد وعرون زوجها ننكيني وفرك عسون وعرون ها أيضا زوجها ننكيني وعرون بكسر الراء يفركها بفتحها أبقضها وعرون والله أعلم. عن عمرو بن أحوص الجمشي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكمقل في حجة الوداع حجك وقدم ميوسكو تسكي مع السلامين يقول النبي عليه وكمقل بعد أن حمد الله من أولئك حمده تعالى كرها وأثنى وأمر عليه على الله وذكر وحسن ووعد وعديدتك وحسوسي ووعدي ثم قال النبي وحوي ألا هو وصل صدر دار بالنساء هوين خير سيدر دار أحدين أدنى ركتهين إلى الوناجسان إلى الأرض القادة وإذن لقلت وإذن أشي وان أشي هو أمين لمدهم هو كليا إذن أحيان وأدقوا ستين خير صدر دار أي أما إلى خير دار فإنما أولهن عوان محابس به لا يستيال عندكم أكتين محابس به أول يوحي ما يستيال لعنت إذن كتيرا ليس معاني تملكون كوي حنت أملك منهن حق ولا شيء غير ذلك دردارمك إيا طلقاتك إيا الله يسهل ماذا عمبويا وحكى له أكتين إيكويه المال إلا أن يأتيني إلى اللي ماذا مويا يا أصبر كمال يا خير كاس إلا تكون الرقمتان مويا تكون وانسان يا طلقاتك إلا أن يأتيني إلى اللي ماذا مويا بفاحشة حماة زنيئية أخلاق مئية أفحمئية قيلئية نفسي إلي ماذا مبينة توسكعت وقد كبش عليه إلي ماذا يقول الآفية فإن فعلنا فلان أرنتاس فهجروهن كهاجر في المضاجع قال موشدة أما على السياحة فراش تدخل السياحة كتق كقول كجيف بالدش كقول بالدش واضربوهن قراع حتى تكون توم وياي مركز جوش وتكتين تسبدل وياي توبكين وياي سوق ضوع وياي سود وياي حلتهم حل قراع ضربا قراع سوق غير مبرح أم بررين أن إيكن دادين حل قراع فإن أطعنكم حتى إن ورينا إن تلت لجيستانو وإذا أطيعان فلا تبقوا هرادين haddaan taasi calayhina sabiila wax kale iyo arrimo kale ha u faagfaagina waxa u baarbaarin oo hadda kor baa waxaa samays hadda korkaas maad samays halkaa kor miyaas ha oran waxa u baarbaarin wixii hore ha baarbaarin alaa hooy ina lakum idinka waxaa idiin sugnaa calaa nisaa'ikum haweenkiina xaqan xaq baad ku leedihiin oo inay idiin gutaan ay waajib tahay idinku adeecaan ee idinkaga dambeeya walinisaa'ikum haweenkiinana عليهم أوينكين عليهم أنتشين عيون حق بينكم كلين إلى الأجودتان إذن كنا حق بات كلين عيون حق بينكم كلين لكن حطيناه فحقكم حطين عليهن الدشون أو كلين الله تواتئهن وإنين كفريسن وإنين كستاجن وإنين كساحن وإنين أؤذن فرشكم فراش دينية جنبر دينية كراستين من تكرهون dad annaan raalli annaan ka ahayn oo aad dhibsanaysaan annaan u idmin annaan u fasixin waa inayna ku seexinin gogoshiina kursigiina eena ku firaasinin ee ku fariisinin dad aad dhibsanaysaan walaa ya-adana waa inayna idmin fii buyuutikum guryihiina soo gelitaankiisa ee soo geliyaan ku soo xareeyaan albaabka ee ka furaan iyo waa inayna u idmin u fasixin liman qof takrahuuna ciddaan dhibsanaysaan ad karaahaysaneen alaa hooya waxaquuna xaqoodu calaykum xaqay ayagu idinku leeyihin kaawaakaad ku leedihiin ayaguna xaqay idinku leeyihiin an tuxsinuu waa inaad samaan iyo wanaag iyo ixsaan u samaysaan ilayhin haweenka fii kiswatiina xagga dhar xirashada iyo marinka iyo wadacaamuna xagga quudinta iyo raashin waa inaad ixsaan ugu samaysaan rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasanu saxiix weeyaan
قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات محابس وقوة قفال جمع عالية ويا عوان وجمع بالعين الآخر مهملة وهي الأسيرة تلص وقفا شيء محابس والعالي الأسير ويا تلص وقفا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ويلي في دخولها قنتان كان سوقش تحت حكم زوج حكم كيس هوستيس هي تلديس هي أمر كيس كصوص أرورت بالأسير وكشبه وكشاي والضرب على المبرح ضرب المبرح الشاق والشاق كالنبا الشديد أن يقف كالنباتين يلا حاولنا لف جميلة سرها إيك الدانين وقول صلى الله عليه وسلم فلا تبقوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا حق قلبنا طريقا والضر هي دانداس أضم تحت جورة حجاز نبي حجاز والإفتاء عليهن الدشون وتؤذونه النبي أدخل إفتاء والله أعلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال وحول قلت وحنا يا رسول الله ما حق الزوجة ناكت حقين محوية ما حق الزوجة أحدنا متك النجح أنا نارنا مثل نجح منه زوجي حق عليه دشي سيكون هذا بحيث حق يكون هذا ناس من نوكل باباي نوكل نوكل عبده نوشرح قال النبي وحول أن تطعمها وإلى القود السهم إذا طعمت مركز وحنيس أيضا وإلى وحنته عنته حنيس وكذا وإلى عنته وإلى لك قديم بهديانا وحول أنت عنتني يكون كرس ووقت يكون كرس وأرتي يكون بحر إيه أيضا باي يكون سيحنيسة أما باي يكون أرجانيسة وحيا كرسون هذه هي مرتدانية تدكيك إذا سوى الرد أيضا لما نحن نوصليسا وحلقيا ما إلى كوب بيانا إلى عبد قد توجد كجل شرف إيه وراك إيه وحنا إيه وأرك إسوا أركته أفكر وأرك طار حق ضروي الظلم ويحارة واحد قدر هي حق يكون سارة أو ضياع وتكسوها إلى الأمة الشيء سوي قد أحد المرين إلى تكسير مركا أديم الأرئيب سليس والأرجناليس وإلى أيضا أولي بستا والأرأدو إي بستا ولا تضرب الوجه وجهنا وحكا جارسين وحكا جرا هذا فريس وجهها كجرا ولا تقبح هذا فول حمانه كان عيبانه أنا كهلين أنا كعيبان ولا تقبح قبحك الله إلهي هاكو حما إلى وجهها هالدوري وجهها الله وحي هأورني وجهها كحمان هكا عيبان هكا الدورين عند الله وحي يقول ولا تهجرها كهاجرها كالتجر أو بحي قرن إلا في البيت قرن حتى إذا مال قرن كم أحسن هكا سيحانون هكا آدي ساتنا ودمنا قالنا قرباي ولا جواك عليه إلى تايمويا هذه مركز بوليس عسكر الوعي وشرع قاعي نفط عليه حتى انك اليها ومرتا ظروف ايه كانت مويا ولا تهجر هكا توفي هكا علن هكا فوقاني هكا تجن قرقا وقبحن ومال كان هآدن حافظي هوتيل يمالك إلا في البيت قرقا نحتينو إلى أما أتكسي جيسد أما سرير كان أتكسي حدو قرقا نحتينو كو إفكاو حديث حسن ما رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أي لا تقولها أوراني الدين قبحك الله إلهي هاكو وجهها هالدوري وجهها حماية شرفت الله كاقام إن كان لا يكون الدين هاكو هباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين هو أغنى ما استران هو كامل إيمانا حق إيمان كود وكامل يقول لما يستري أحسنهم كوا وقول أحسنهم وقول ولا يسوي خلقا حق الطبيعات رقم مؤمنين كوا إيمان كود ولما يستري وكامل وفول اللي ولما يستري إيمان كود وكوا أخلاق دول يرقم كود ولا يسوي ويان رقم كود ولا يسوي إيه الكود ورقم ولا يسوي وخياركم هو الخيار خيارهم للصائم رك هو وخيار ليه يمن وانين أخيار وانين وناس وانين وحجر وانين حلكس
waa nin wanaagsan waa nin mas-uula la leeyahay waa kan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo reerkiisa u wada akhyaar u ah mooyanka odayaasha iyo magaaladii iyo suuqa iyo banaanka iyo akhyaarta ka ah u ah oo loo wacalay geedka ka hadlahay noogu yeera laleeyahy ma aha ka mid u yahay laakiin waxaa ka weyn oo ka sarreeya oo ka horeeya markuu reerkiisa kasoo bilaabo caruurtiisa iyo xaasaskiisa haweenkiisa uu akhyaar u noqdo oo waajibkii iyo xilkii saaraa uu guto kasoo baxa ayuu dadka kalena marka ayuu akhyaar u noqonaya hadduu reerkiisii iyo ilmihiisii iyo ciddiisii uu akhyaar u ahayn banaankana akhyaar kama noqonayo laguma sheegi karo wa khiyaarukum ka idinku akhyaarsan idinku nafci badan idinku wanaagsan khiyaarukum ka idinku akhyaarsan weyna nisaa'im xaasaskooda haweenkooda rawaahu tirmidhi waqaala xadiisun xasanun saxiix وعن إلياس وحذر ابن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوها جراعنا بوير إماء الله الضوامها إلهي وإسلامي حاسسه قبله ويان هجراعنا هجراعنا هوينك إماء الله هوينك يان لجراعن دمرك يان لجراعن أيها الرسول كل هدلنا هجراعنا ومساكين ومحابيس نعمين يكون سنوني يمام الفين فجاء عمر بن الخطاب يا نبي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر قال إسا وحفصة الرسول كاقام صدق يا رسول عمر فقال عمر وحوي ذرينا وين إيردين ويكون البحين ويكون قيسيوبين النساء وهوينك على أزواجهن لما كودي ويكون إيردين سيف من الله الصبح ويكون قاطع ويكون كبرين ويكون كبرين رسول الله وهوينك رق يقوي ويكون كبرين hadalkaa atiro haween ayaa la garaacin atiri markii garaacii laga joojiyey kaasaa markii hore looga qabo baraa looga nabad qabay oo lagula socday hadda way kibreen raggii way ku kibreen wixii ka maqlay wixii ka dhegeysan iyo wax qadar iyo wax xushma u mahayaan faraqasa nabigu uu rusqay fii darbina neesaa sheekadooda inay hala garaacoy faataafa waxaa ku soo aruuray biaadar rasuulka iyo ehelkiisa waxaa ku soo aruuray oo xaafadihiisa iyo guryihiisa ku soo yaacay oo ku soo dareeray oo ku soo codbatay salawaatullaahi calayhi wasalaamu rasuul ehelkiisa guryahooda waxaa soo gaaf buuxiyey nisaa'un kathiirun haween fara badan yashkuunaya oo ka dacwoonaya ka ashtakoonaya aswaajahunna raggii ayaga qabay ka dacwoonaya oo raggii baa na laayo la dilay la jejebiyo la daqray ul nagala daadan ayuu dhahayo nimankooda garaacooda ayagoo ka ishtakoonayo oo ka dacwoonaya iyay yimaadeen rasuulku u yimaadeen faqaala rasuulku wuxuu sal allahu alayhi wasalam laqad ataafa waxaa soo gaaf buuxiyey biaali beyti muxamed sal allahu alayhi wasalam nabi muxamed guryaha ehelkooda dadkii degdanaa xaasaskii degdanaa oo nabi maxamed xaasaskiisa guryahooda waxaa soo buux dhaafiyey laqad ataafa waxaa soo buux dhaafiyey oo soo gaaf wareeyey biaali beyti muxamedin muxamed guryaha ehelkooda reerihii degdanaa nisaa'un kathiirun haween fara badan yashkuuna ka dacwoonaya ka ashtakoonaya aswaajahunna nimankooda ragga ayaga qaban ka ashtakoonaya oo kasoo dacwoonaya kasoo cabanaya laysa ulaa'ika kuwaas ma ahan nimanka haweenkoodu ay kasoo dacwoonayaan oo dacwo kasoo gudbiya cabasho kasoo gudbiya ma ahan raggaas laguma tirin kara ulaa'ika kuwaa bikhiyaarikum kuwa idinku akhyaarsan kuwaas ma akhyaar maa kuwaas maha akhyaar maa kuwaas kuwa haweenkoodu kasoo xaasaskoodu kasoo dacwoonaya kuwaas akhyaar ma dad akhyaara ma rawaahu abu daa'uud biisnaadi saxiix bukooni xadiiska qowluhu yadharina huwa bidaali الأخرى معجمة مفتوحة ثم همزة الأخرى مكسورة ثم الراء الأخرى ساكنة ثم النون الأخرى افترانا ويقيس يومي وعلال أديغين ويكون إيرانين قوله إلى الطاف أحاط أو حسو هريري صوب نافي وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
qaala wuxuu nabiga adduunyadu mataacun waa ku meelgaad waa dhaldhalaan iyo ku waqti moodis waa dhaldhalaan iyo ku meelgaad weeyaan wa khayru mataaciha dhaldhalaalkeeda iyo alaabteeda iyo biriqbiriqdeeda iyo nuurnuurkeeda iyo ku meelgaarkeeda waxaa ugu khayr badan ugu baraka badan almar'atu saalixa haweeney saalixa oo wanaagsan oo ilaahay ku xiran ilaahay ka amar qaadanaysa rasuulka ka amar qaadanaysa doorsoon muxsinad ah wuxuu ilaahay ka harayna wuxuu ilaahay ka reebayna ka hadhay wuxuu ilaahay u diray oo amrayna adeecday oo fulisay oo ka waryeeshay ninkeedana raali gelisay hadduu fiiriyo oo arkana libiskeedii iyo suuradeedii iyo carafteedii iyo soo jiidashadeedii uu keenay hadduu wax u dirana oo sameeyiraana ka waryeelayso oo dhegaysanayso oo adeecayso oo wuxuu sameeyiraa hadal aan ka soo celinayno ku dhaqaaqayso taasaa adduunyada ugu raaxo badan ugu khayr badan rawaahu muslim baa wali xadiidka wariyo saxiix wey cashirka nagii 17 halkaa ayuu inoo joogay subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wa sallallahu wasallam calaa sayyidina muxamed wa alihi wasaxbihi wasallam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.